bismillahi rahmaani rahiim. khiyaaray kusoo dhawaada shabakadan SADAK TUTORIALS oo aad uga barateen inaad ka barataan cilmigan teknolojiyada. So cashirkeena maanta ama tutorialkeena maanta waxaan ku arki doonaa wuxuu introduction u yahay course-keenii ahaa complete web developer course oo ahaa course dhammaystiran oo ka kooban ilaa iyo 13 section. Each section aan ku baran doono something oo important u ah safarkaaga ama shaqadaada web development ama horumarinta websites. So sectionkeena maanta waxaan ku arki doonaa yani getting started, inaan sameyno below oo inaan set up gareyno softwareska ama environment-ga aan ku shaqeyn doono. So sectionadaas marka haddii aan introduction wax yar ka bixiyo, waxa ugu horeeya wax la dhaho HTML oo runtii base u ah every website oo maanta taagan. luuqad walba ha ku dhisnaado PHP, JavaScript, waxa base u ah HTML. waxaan kaloo ka mid ah sectionadaas CSS, waxaa ka mid ah jQuery, waxaa ka mid ah Python sida loogu isticmaalo web development-ga. inaan ka hor dhaco ma rabno, each section waxaa ugu tegi doonaa meeshiisa. So maanta waxaa muhiimada tutorialkeena waxaa waaye inaan set up gareyno environment-ga aan ku shaqeyn lahayn. markii course-keena aan ka hadlayno waxaa muhiim ah laba waxyaalood. maadaama waxaan uu yahay website, marka koowaad waxaan u baahannahay inaan helno web browser si aan yacni accessibility aan ugu yeelano ama aan u aragno yacni shaqada iyo waxa aan wadno. midda labaad waxaa weeyaan inaan helno environment-gii aan code ku qoran lahayn. So course-kan marka aan kiciyo Google-ka, course-kan waxaan idin kula talin lahaa laba software inaad soo degsataan. software-ka koowaad waxaa weeyaan Google Chrome oo aad u isticmaali doontid browser ahaan. waan idin tusi doonaa qaabka aad u heli kartid haddii aad internet haysatid. way fududahay, waa free. kan labaadna waxaan idin kula talin lahaa inaad isticmaashaan software la dhaho practice. haddii aad u isticmaalaysid yani environment-gii ama application-ka ku shaqeyn lahayd. computerka xoogaa jamo. midka koowaad waa Google Chrome oo aniga waa haystaa, laakiin waxaan idin tusi doonaa qaabka u heli kartid. runtii waa very fast browser. soo ka rabaa soo kacay waa kana software-ka koowaad. hal mar Google-ka aan galo, software-ka koowaad oo ah Google Chrome. waxaa u heli kartaa inaad aadid ama inaad qortid Chrome download. waxaa la shirkadan Google, waa free, waa heli kartaa every browser haddaa every operating system haddaa isticmaalaysid Mac OS, Windows, Linux waa heli kartaa.
waa kana waa linkiga ugu horeeya oo ku dhufanaysaa wuxuu ku siin doonaa linki aad ka download gareysan kartid. ujeeda waa Chrome for desktop, waxaa loo isticmaalaa desktop computers. waa kana butankana waxaa leedahay download, aniga waa haystaa, waa very fast browser. softwareka labaad waa waxaa la dhahaa waa bracket, waxaana u isticmaali doontaa waa environmentiga aan ku shaqeynayno ama practice. waa kana waxaa la dhahaa website-kooda, official website-kooda waa practice.io. labadaas waa ku dhufanaysaa linkiga koowaad, wuxuu ku geyn doonaa website-kooda. aniga labadoodaba waa soo degsaday. waa kana meeshaan u yaala this one, qaabku uu yahayna waa kana. waxaa available versionkiisa 1.11, waxaa dhihi doontaa download. marka taas environmentiga aan ku shaqeyn lahayn waa labada software u baahan tahay. markale kusoo dhawaada course-keena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.